بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما إسنينه أو تلاذا أي سو غليسو سو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo ku dhawaaqay inay hadda kadib u hawlgeli doonaan sidii weerar halkii difaac ay ku jireen Trump oo qiray in Iran aysan doonayn inay gasho heshiis sida Mareykanku uu doonayo afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka oo ku baaqay in la soo afjaro dagaalka Iran ugu yaraan 50 muhaajiriin oo Soomaali ay ka mid tahay oo laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya iyadoo 7 kalena ay ku dhinteen badda in ka badan 50 qof oo waxyeello ay ka soo gaartay qarax galabtay ka dhacay iskuul ku yaal dureedka magaalada Kabul ee caasimadda waddankaasi Afghanistan sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay wiil dhalinyaro ah oo ardaya oo fuundi xilliga waxbarashada uu ka maqan yahay ku jiray ayaa waxa uu helay dahab qiimihiisa lagu sheegay $10 milyan in ka badan sheeko xiise leh oo ka dhacday waddanka Belgium ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo faraqayntii iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamij oo lagu soo warramayo in masiibo kale ay ka dhacday inkastoo dad tubaneeye ah la soo badbaadiyay aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan markab ay leedahay hay-ad samafal oo lagu magacaabo emergency ayaa maanta badbaadiyay 50 muhaajiriin ah oo saarnaa doon alwaax ka samaysan oo markaasi badda sabaynaysay taas oo lagu arkay biyaha caalamiga ah ee ka baxsan xeebaha Liibiya iyadoo 7 qof oo kale la sheegay meydkooda in la soo helay hay-adda emergency ayaa sheegtay in hawlgalka samata bixinta la sameeyay saacadihii hore ee maanta dadka badbaaday ayaa waxaa la sheegay inay magaalada xeebta leh ee Zuweera ee dalka Liibiya ka soo baxeen maalintii shalay iyagoo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka dadka safarka ku jiray waxay ka soo jeedaan Soomaaliya iyo Masar kontonka qof ee la soo badbaadiyay waxaa ku jira 45 rag ah 5 dumar ah ayaa sidoo kale ka mid ah waxaana sidoo kale la xaqiijiyay inay ka mid yihiin 29 carruur iyo dhalinyaro ah oo waalid ama qof mas'uul ah uusan la socon taasi oo muujinaysa qatarta weyn ee ay wajahayaan dadka tahriibka ee doonaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka waa hagaag warkaasna inta aynu kaga gudubno wixii ku soo kordha arrintanna barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii aan la idmo imikana xagga Afghanistan aynu eegno in ka badan 52 qof ayaa ku dhaawacmay qarax bamgacmeed oo maanta ka dhacay iskuul gaar loo leeyahay oo ku yaala galbeedka magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ilaa hadda lama xaqiijin wax dhimasho ah qaraxa ayaa ka dhacay iskuulka gaarka loo leeyahay ee Sham Hadayat oo ku yaala deegaanka Mahdiya ee degmada amniga 18aad ee Kabul gaar ahaan aaga Deshbarshi warbaahinta Ariana News ayaa waxay sheegaysaa in qarax uu dhacay abara 4:55 daqiiqo ee galabnimo waqtiga maxalliga afhayeenka booliiska Kabul Khalid Zadran ayaa sheegay in bamgacmeedku qarxay xilli uu gacanta ugu jiray arday dadkii dhaawacmay ayaa loo qaaday cisbitaalada si loogu daaweeyo halka ciidamada ammaankuna ay gaareen goobta oo baaritaan lagu bilaabay warbaahinta Afghanistan International ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah dhaawacyada la geeyay cisbitaalka Istiqlaal wal Amni 3 ka mid ah 4 qof ee dhaawaca oo la geeyay cisbitaalka Istiqlaal ayaa la sheegay inay ahaayeen carruur da'doodu ay ka yar tahay 13 sano waa tahay warkaasna inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa goordhow
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha bariga dhexe ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan oo sheegaya in hadda kadib difaacaysa noqon doonin oo weerar ay noqon doonaan Trump oo isna soo hadlay iyo afayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka oo leh waxa la joogaa xilligii dagaalka la soo afjari lahaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijkana way noo soo socotaa intaan u gudbin sheekooyinkaasi iyo xayeysiinta qadar ogeysiisa telefishinka kale ee RTV waxaynu soo gelinay sheekadii xiisaha lahayd ee Aisha waxay haysaa shaqo mas'uuliyadeeda ka weyn waana qaybtii afraad sheekadu meel xiisala ayay maraysaaye markaad dhamaysto barnaamijkan intaad ka yaranaysatid wararka dagaalada iyo qaraxyada iyo hanjabaadaha bal dib u daawo sheekadaasi iyo qisadaasi cajiibka ah waa hagaag imika waxaynu u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe oo bariga dhexe maraysa waxaynu ku hormaraynaa war kale oo ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dad badan waxay leeyihiin hadalladan iska soo dabadhacaya ee Trump ka soo yeeraya waxay ka macno yihiin in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku jahwareersan yahay ciil iyo caran ay ka haysato xaaladda waddanka Iiraan haddaba saacadii ugu dambeeyey wuxuu la hadlay saxaafadda isagoo ku sugnaa aqalka cad ee looga arrimiyo dalkaasi Mareykanka Trump ayaa sheegay in Iiraan aysan geli doonin sida muuqata heshiis gaar ahaan sida Mareykanku u doonayo waxaa uu ku daray in Mareykanku uusan doonayn in la kordhiyo muddada isafgaradka lala gala Iiraan kaas oo la saxiixay bishii June iyadoo maanta ay ku ekayd waqtigii lagu ballamay fulinta heshiisadaasi Trump ayaa carabka ku adkeeyay in Iiraan aysan yeelan karin hub nuclear ah isla markaasna weligeed aysan yeelan doonin wuxuuna ku andacooday in Iiraan ay doonayso in heshiis gaarto waa sida hadalka uu u dhigay waxa kale oo uu tilmaamay in aysan muuqan markaasi Iiraaniyiintu in ay ku socdaan dhabaha ay ku saxiixi lahaayeen heshiis Mareykanku sida uu doonaya madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in Iiraan ay ku sii jirayso go'doominta waxaana uu sheegay inay jirto dhibaato weyn iyo sicir bararka oo uu sheegay in uu marayo 300% waa sida hadalka uu dhigay dalkan uu ku jiro qalalaase ciidamadiisana si buuxda looga adkaaday waa sida hadalku uu yiri dhinacaas marka waa Trump ciidanka Iiraan uu leeyahay waa laga adkaada ayaa soo hadlay marka aynu eegno telefishinka Press TV warbixin arrintan la xiriirta oo uu qoray sarkaal sare oo Iiraaniya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Iiraan ay go'aansatay in ay ka gudubto habkii difaaca oo ay u wareegto hab weerar buuxa kadib markii dadaaladii lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka ay gaareen meel aan laga gudbi karin sarkaalka ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay diyaar u noqon doonto inay qaadato go'aamo iyo weliba tillaabooyin adag sarkaalka oo magaciisa aan la xusin ayaa daboolka ka qaaday in Iiraan ay qaadi doonto weerar military waqtiga ku habboon isla markaasna si sax loo fulin doono si loo jabiyo go'doominta ciidamada badda Mareykanka haddii dadaalada dhanka diblomaasiyadda ay fashilmaan sarkaalka ayaa ku nuuxnuuxsaday in Mareykanka laga doonayo inuu dhammaan qodobada heshiiska ku fuliyo muddo gaaban oo dhowr toddobaad ah taas oo Iiraan ay go'aamin doonto isagoo intaa ku daray in sharuudaha looga baahan yahay Mareykanka ay tahay inuu fuliyo ka hor inta wadahadalo dheeraad ah aan lala yeelan Washington waxaa intaa uu ku daray in dhexdhexaadiyaashu ay Washington iyo dalalka gobolka gaarsiin doonaan muddada kama dambaysta ah ee Iiraan ay dejisay isla wararka Iiraan Ali Akbar Walayati oo ah la taliye sare oo hogaamiyaha kacaanka islaamiga ee Iiraan kala taliya arrimaha siyaasadda ayaa dhaleeceeyay luuqadda hanjabaadda ee maamulka Mareykanka uu kula hadlayo shacabka Iiraan isagoo ku nuuxnuuxsaday in mustaqbalka Mareykanka ugu dambeyn lagu go'aamin doono miiska jikada ee qoysaska Mareykanka halkii lagu go'aamin lahaa miiska qolka dagaalka Walayati ayaa fariin uu ku xuseeyay sanad guuradii 73aad ee afgambigii
19 Agost 1953 ee Iiraan oo Maraykanku taageerayo ka dhacay markaasi oo lagu afgembiyey ra'iisul wasaaraha xilligaasi ayaa fariintiisa wuxuu ku daabacay baraha bulshada. Afgembigaasi oo Maraykanka iyo Britain ay soo abaabuleen ayaa xilka lagaga tuuray ra'iisul wasaarihii Iiraan ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay Maxamed Mossadegh, waxaana dib xukunka loogu soo celiyey boqortooyadii Maxamed Reza Pahlavi. Walaayati ayaa sheegay in inkastoo 73 sano ay ka soo wareegtay afgembigaas, haddana Maraykanku weli ku tiirsan yahay isla luuqadii iyo xeeladihii cadaadiska ee uu Iiraan kula dhaqmi jiray. Wuxuu tilmaamay hadaladii ugu dambeeyay ee saraakiisha Maraykanka sida xogayaha maaliyadda Maraykanka oo ka hadlay cunaqabatayn dhaqaale oo ka dhan ah Iiraan iyo madaxweynaha Maraykanka oo mar kale ku celinaya in dhammaan xulashooyinka miiska ay saaran yihiin. Dhammaanba arrimahaasi ay muujinayaan in dhibaatadu ay tahay midda hadda saaran oo khasaarana uu ka soo gaarayo shicibka Maraykanka. Waxa uu soo hadal qaaday hadallo uu jeediyey senatarka Maraykanka ee lagu magacaabo John Cornyn, kaas oo ka digay qiimaha sii kordhaya iyo cadaadiska qarashka nolosha ee haysta qoysaska Maraykanka. Fariinta Walaayati ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli ay socdaan xiisadaha Maraykanka iyo Iiraan. Washingtonna ay sii wado cadaadiska dhaqaale, halka Iiraan ay ku adkaysanayso in isu dheelitirka awoodda gobolka ee dhinaceeda uu u wareegay. Trump ayaa horey ugu hanjabay in marinbiyoodka Hormuz laga dhigi doono wasiidalku yiri dhul Maraykan. War kale oo arrimahan la xiriira, wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa carabka ku adkeeyey in dalkiisa ay ka go'an tahay inuu sii wado geedi socodka lagu go'aaminayo waddo ammaan ah oo maraakiibta uga gudbi karaan marinbiyoodka Hormuz, iyadoo arrintaasina lagala shaqaynayo saldanadda Cumaan. War hadda soo dhacay, telefishinka Iiraan ayaa waxa uu sheegayaa in marinbiyoodka Hormuz gaar ahaan meel ku dhow jasiiradda Qisham lagu qabtay markab shidaal siday oo lagu tilmaamay mid sharci darro ah. Waaya intaa markaynu ka gudubno, waxaa soo kordhay war kale. Afhayeenka aqalka Koongareeska Maraykanka wuxuu leeyahay dagaalka waa in la soo afjaraa. Hadda la soco waa nin aad u taageersan Trump, isla markaasna Koongareeska madax ka ah. Haddaba aynu eegno warbixintan iyo warbaahinta Maraykanka waxay ka qorayso. Afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Mark Johnson ayaa sheegay in dhammaan dalalku ay doonayaan in marinbiyoodka Hormuz uu u furnaado ganacsiga. Johnson ayaa sheegay in dhinacyada ku lugta leh xaaladda bariga dhexe ay gelayaan marxalad cusub oo lagu dejinayo xiisadda, taas oo gacan ka geysan doonta sida hadalka uu dhigay hoos u dhigista qiimaha shidaalka. Wuxuu sheegay in Maraykanku uu ku guuleystay sida hadalka uu dhigay inuu madaxa ka gooyo Maska, isagoo weerarka Iiraan ku tilmaamay mid lagaga hortegayay hubka nukliyeerka inay hesho. Afhayeenka aqalka wakiilada ee Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in hadda la joogo waqtigii tilaabo loo qaadi lahaa sidii colaadda loo soo afjari lahaa. Arrintu marka waxay u muuqataa gudaha Maraykanka in laga dareemay culayska. Ninkan muxuu leeyahay qiimaha shidaalka in hoos loo dhigo. Horeyna waxa uu hadlay 2 maalmood ka hor madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance oo toos u leh annaga ahmiyadda koowaad waa sicirka shidaalka iyo nolosha qiimaheeda ee waddanka Maraykanka. Laakiin Trump muxuu leeyahay aniga hadafka koowaad waxa ii ah arrinta la xiriirta nukliyeerka Iiraan. Marka Maraykanka gudihiisa kala qaybsanaan ayaa ka bilaabatay sida khubaradu ay sheegayso. Waa hagaag. Imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. Alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. Sheekadan waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo ardaya ayaa xilligiisii fasaxa wuxuu noqday fuundi, laakiin wuxuu helay dahab oo la yaabay. Guriga uu ka shaqaynayay oo dhismaha uu ka waday ayaa dahab lagu arkay. Haddaba aynu eegno sheekadan iyo warbaahinta waddanka Belgium waxa ay ka qortay. Cobb Phillips oo ah arday 18 jir ah oo shaqada xagaaga ee iskuulada fasaxa looga maqan yahay ka hayay goob dhismo ah ayaa magaalada
lagu magacaabo Dendermonde ee waddanka Belgium wuxuu ka helay dahab lagu qiyaasayo 9 milyan oo euro waa lacag u dhiganta 10 milyan iyo 500 oo kun oo doolarka Mareykanka. Philips ayaa ka mid ahaa 8 shaqaalaha oo dayactir ku sameynayay dhisme qadiimi ah markii ay dabaqa hoose ka heleen boorso lagu qariyay gidaar lebin ah oo lagu xiray halkaasi. markii hore wuxuu moodayay lacagta halkaasi taal qadaadiic euro ah balse waxa markii dambe soo baxay dahab. kaydka la helay ayaa ka koobnaa 40 xabo oo wasalado dahab ah iyo 4,000 oo lacag qadaadiic ah oo dahab ah macnaha shilimaan. shaqaaluhu waxay arrintii ku wargeliyeen booliiska kuwaasi oo dahabka geeyey meel ammaan ah. xeer ilaaliyaha aagaasi East Flanders ayaa baaraya halka dahabkan uu ka yimid cidda iska leh iyo inuu xiriir la leeyahay hanti la xaday ama falal dambiyeed. qaar ka mid ah dahabka ayaa wata calaamado laga soo bilaabo 60-meeyadii. dad dhowr ah ayaa durba sheegtay inay yihiin faracii dadka suurtagalka ahaa ee lahaa hantidan iyadoo muran dhanka qaanuunka ah oo ku aadan lahaanshaha dahabkana uu dhici karo. arrintii marka waxay noqotay arrin la yaab leh sida halkan ay kaga muuqata. nimankan gurigay ka shaqaynayeen waxaa laga helay dahab 10 milyan iyo 500 oo kun. qaanuunku si u fiican yahay bal eeg lacagtii lama qaadan dahabkii lama qaadan ayaa ula jeeda booliiska loo yeeray waxa leeyahay meeshan dahab baa ka helay kaalay ark. sideedood waxay awoodeen inay qarsadaan laakiin meel geen karta ma jirto. haddii la iska war helo dambi baad galaysaa. nimanka marka waa niman arday ah dhalinyaro ah waxay rabaan mustaqbalkeena iskaga ciyaarinina kan badan baa shaqaysan kartaan haddaad nooshiin laakiin arrinta booliiska lagu wargeliyey. marka taa laftigeeda qayb waa daacadnimada ka tahay qaybna waxay ka tahay qofka inuu ilaashado damiirkiisa iyo mustaqbalkiisa. haddii inta qaadatid lagu soo qabto maxkamad lagu geeyo waa ku dhamaata marka xabsi waad gelaysaa gacanta barkanaysaa. waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo.